dowladda Itoobiya waxaa la soo darsay cadaadis kaga imanaya caalamka iyadoo la doonayo inay baaritaan ku samayso dhibaatooyinkii sababay dhimashada in ku dhow 70 qof toddobaad gudihii weerarada argosiga ah ee ugu dambeeyay ayaa ka dhacay dhanka bari ee gobolka Oromia iyadoo dad badan ay ku dhaawacmeen guryana ay ku baaba'een ku dhawaad 700,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii ilaa iyo markii ay bilaabtay dagaalka u dhaxeeya labada qowmiyadood ee Oromada iyo Soomaalida bishii Sebtembar ee tagtay Mareykanka iyo Yurub ayaa walaac ka muujinaya iyaga oo isugu yeedhay labada dhinacba isla markaana raba inay wada fadhiistaan miiska wada hadalka Qaalib Baaruud ayaa ka waramaya halkani waxay hoy ku meel gaara u tahay boqolaal qof oo barakacayaal ah rabshadihii istaba joogga ahaa ee ka socday bariga Itoobiya waxay qaxooti ka dhigeen 10,000 oo rag haween iyo carruur isugu jira jaamacaddan waxaa guud ahaan buux dhaafiyey carruur aagoon ah iyo haween raggoodii lagu laayay dagaalada bariga Itoobiya qolkan yar qiyaastii waxaa wadaaga 40 hooyo iyo ubadkoodii qof waliba waxa uu hayaa sheeko muruga leh dil kufsi iyo boob ay geysanayaan rag hubaysan noloshayda ma hilmaami doono waxa dhacay waxay ka dhigan tahay inagoo dhimanay ma noolin waan murugaysanahay dad badan ayaan ku waayay oo ay ka mid yihiin walaaladay gabdho iyo wiilalba sidoo kale hooyaday iyo aabahayba gurigayga waa la gubay aad ayaan u murugaysanahay khilaafku waa mid qoto dheer oo salka ku haya xuduudo iyo tartanka loogu jiro khayraadka dhulka labada maamul goboleedba waxay isku eedaynayaan inuu mid waliba dagaalka u adeegsanayo ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaad hubaysan xukuumadda Itoobiya waxay sheegaysaa inay baadhayso eedeymahan waxaa jira qaar ka tirsan ciidamada deegaanada ismaamulka ah iyo waliba qaar ka tirsan ciidamada federaalka ah oo si sharciga ka baxsan u dhaqmaya laakiin si aan ahayn wax qorshaysan oo ay ka dambeeyaan hay'adaha dawladdu kuwa sidaas sameeya dawladda waxba meel uga yaala isla markaana waxay qaadaysaa tallaabooyinka ku habboon labadii sano ee la soo dhaafay dawladda Itoobiya waxaa la soo darsay mudaharaado ballaadhan oo isdaba joog ah oo lagaga soo horjeedo taliska xukuumaddan 25 jirka ah waxaa laga cabsi qabaa inay rabshadahani sii kordhaan oo ay dalkoo dhanba halis geliyaan